kulanti waxana wanaagsan daawadayal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij khaas oo idinka diyaarinay ururka wacyigelinta dhalinyarada ee Taakulo oo ka dhisan magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togwajaale ururkan oo ah urur inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degmadaasi Togwajaale waxaana xusuus mudan inay ururkan ku buhoobeen guud ahaan dhalinyarada kala duwan ee degmadaasi Togwajaale isla markaasina ay kaalin firfircoon kaga jiraan u adeegida arrimaha bulshada ee degmadaasi Togwajaale haddaba daawadayal waxaan isdul taagi doonaa waxyaalihi kala duwan ee u qabsoomay muddadii ay jirtay ururka wacyigelinta dhalinyarada ee Taakulo ee daawasho haboon arrintaasi si dhow iyo si kala weyn wax uga qabtaan oo la xiriiray oo iyaga lafteeda aan wax tabarucaad laga haynin iyaga laftooda waxa weeyaan waxaan waxa weeyaan bal hawlaha dambe soo socda kula hawshu inta maaha isku dayana ka qayb qaataan tabarucaadku waa muhiim waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii xubnihii guddiga oo ilaa dhowr iyo 10 xubnihii hormuudka ka ahaa aastaanka ururkan xubnihii runtii sida dhow iyo sida kalaba runtii ula shaqeeyay ururkan Taakulo dadweynaha degmada degan ee Togwajaale ganacsata iyo oqaal iyo culimada karaankii tulba taagtigu rugmadaaba la yiraahdo karaankii guddigii Taakulo waxay keentay in ay qalabkii dadka taarkii lagu xiriyay saldhiga inay keenaan waxa meesha markaa hadhay waxa weeyday in halkan la soo dhigo iska yaala ma noqonaysa waxa hadhay waxa weeyaan gacantii in la diyaariyo dadweynaha markaa waxaan u soo jeedinaynaa oo Taakulo ay u soo jeedinaysaa karaankayga waa kaas inaad ka qayb qaadato iyagana oo u taagan inay ka hawl galaan badbaadada ummadooda xanuunka uu ka hadlay xoogayuhu waa xanuun naasibaya oo faafidiisa iyo dhibaatadiisa intuu gaarsiiyay goboladeenii hore uu aad ugu soo dhacay ay ka mid ka ahayd Burco waynu garanayno markaas aynu uga hor tagno oo inuu badbaadada dadkeena iyo nafaheena aynu badbaadino wax Taakulo rag iyo haweenba la simatoodanimo uga qayb qaadanana ama aanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano wacyigelinta ka hortagga shuban biyoodka taasi oo ka dhalatay fikirka ururka dhalinyarada Taakulo markay shireen ay arkeen hawlaha ka socda caafimaadka ka socda magaalada ayaa waxay ku tashadeen inay sameeyaan si ka hortagda mutadawacnimo ah iyagoo cid iyo kale aan waxba ka doonin oo maamul kaashanaya maamulka dawladda hoose iyo maamulka cisbitaalkaas iyaguna si dar Ilaahay ugu shaqeynaya dadkooga waa cid xanuunsan waa waalidiintayadii iyo ciidayadii marka diyaar baan nahay inaanu afaaf waxaan maanta halkan
ka howlgelaya ururka taakulo ee tabarucaadka ee degmada Wajaale oo ugu talagalay inuu kala diro dhalinyaradii ururka oo goobaha wacyigelin ay ka qabtaan goobihii kaarish laga qaadanay iyo magaalada Togo Wajaale guud ahaan goobaha aanu ka howlgelinayna waa 13 goobood 13 ka goobood lix ka mid yihiin magaalada dibaddeeda yihiin toddobana magaalada gudaheeda yihiin waxaanu dadweynaha reer Wajaale iyo dadweynaha Soomaaliya gobolka Maroodi Jeexba aanu ku wacyigelinaynaa in kaarka la qaato war hoy kaarku waa kaarkii wadankaaga aad ku badbaadinaysa waa kii haddaad xisbi taageeraysa haddaad meel u codaynaysa inaad codayso sababay war degmada Togo Wajaale maanta waxay la tartamaysaa degmooyinka kale Somaliland inay degmo hirgashay noqoto oo golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha sharci dejinta ay ansixiyaan baan doonayna marka waxay awood ku heli kartaa waa codkeeda oo noqda cod ay ummadda wax kula qaybsan karto marka kaarashaas waxaan dadweynaha Wajaale u sheegayaa kaarashaas war hadday 5 cisho qurayno haysanaayay naga baaqi garooba baaqiga wax alla waxaynu xal u helaynaa ma jirto saasay nagu dhaafay oo ka howlgelay degmada Togo Wajaale waaxdeeda iyo magaaladaba oo ugu talagalay barnaamijka dhowr inay fuliyaan oo qaar goobaha ku qoran iyo kuwa kale iyo inta kale oo iyadana u daday inay ku qaadanayaan dhowrka oo ay dadka wacyigeliyaan oo bixiyaan oo ay dadka baraarujiyaan oo qof walba ay u tilmaamaan in goobtii uu marka hore iska diiwaangeliyo uu tago waxaan markaa fariintiisa soo koobayaa dadku inay kaarka si habsami u qaataan dumar iyo haweenba waxaanu bilownay saaka aroortii inaanu isqaybino oo aanu sagaalka sanduuq ee magaalada la dhigay goobood aanu inan ku qorno si ay u caawiyaan ragguna u caawiyo ragga dumarkuna dumarku u caawiyo cid aan goobtan ku qornayna ay ugu dirto goob kale dhalinyarada ururka taakulo iyagoo iskood isku abaabulay oon xisbi iyo cid toona aan ka amar qaadanin kanana waxna kaga doonin si ay deegaankooda iyo dadkoodu u noqdaan dad qaata kaarka ayaanu ugu wacyigeliyaan u kacnay ururka taakulo waxaanu mar walba u taaganahay sidii aan shacabka ku dhaqan degmada Togo Wajaale aan ugu wacyigelinahay in kaarka qaato muwaadin waxaan leeyahay kaarka qaado aabo kaarka qaadanayaan leenahay qablow qoyskaaga iyo jaarkaaga waxaynu u baahanahay degmadani waa degmada maxaydee dadka ku nool degmo yihiin dad balaadhay weeshaan waxaan u baahanahay inaynu helno recordkii inoo yaalay 2010 shakhsigu markuu kaarka qaato ayuu u codayn karaa maxaad musharaxa doonaya xisbiga doonayo qoys dhowr baan bilaabanaa hawlgal sheega labadaba bali ayaan u diriyaa sidoo kale madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saydici sidoo kale waxaan marnaba la ilaawi karin madaxweynaheenii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siidaayo qabo in ilaahay xilka maanta iyo mas'uuliyadda uu qaaday ilaahay ku asturo madaxweynaheena aynu dooranay kuwii codeeyay maanta isaga madaxweynaha dadweynaha reer Wajaale waxaan leeyahay kuwii shalay wadani ahaa iyo kii u ciidahaaba iyo kii kulmiye ahaa maanta mid baynu nahay mudane gudoomiye saad arkayso Wajaale waad arkaysaa siday hawshu uga socotay habsamida ah kaliya waxaan u mahad celinayaa ururka taakulo waxa aad iyo aad noo caawiyoon halkan ka xusaya degmada ururka taakulo la yiraahdo dhalinyara ayaa aad nooga caawiyay arintaasi Wajaale dadweynaha gobolka Gabiley dadweynaha gobolka Maroodi Jeex iyo dadweynaha gobolka Togdheer oo intaasba ay diiwaan qaar qaadashadii ay imika ka socoto horena sidii waynu u sheegnay maantana waxaan ku baraarujinaynaa in maanta kaarka la qaato aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa
maamulka degmada iyo gobolkaba gaar ahaan maamulka degmada Togwa Jaale ururka Taakulo oo qayb weyn ka qaatay gacan weyn ka geystay iyagu sabaabulay mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaya ururka Taakulo ee soo xilqaamay inay ku wacyigeliyaan bulshadooda degan iyagoo u damqaday muxuu ahaa aabahood iyo hooyadood iyo walaalahood dadkii wacyigelinayaan horta waa dadka weey waxa weey insha Allah ta'ala ururkaasina wuxuu noqon doonaa urur tasqaado ayuu noqon doonaa maaha markii ugu horeysay ururka Taakulo uu ka hawlgalay degmada Wajaale kullay inaasan ku soo gabagabayn doonaa goor gaaban hadalkeed gaaban kullay shaqadii hawlgal wanaagsan baynu gali doonaa intaasan ku soo gabagabayn doonaa assalaamu calaykum oo kormeeraya wacyigelintaas waxay soconaysaa 7 cisho oo maanta ka bilaabmaysa degmada waaxaha degmada ayaa guri xaafad aqal goob shakhsi ayaa loo mari doonaa wacyigelintana loo gaarsiin doonaa biidnillaahi kariim sidaa daraadeed fikradka cusub dhalinyarada u damqatay ee naftooda u huraysa ee garatay inay waalidkooda iyo walaalahood ay ku caawiyaan xoogooda iyo aqoontooda si ay uga wacyigeliyaan dhibaatada saameynta weyn ku leh ee ku habsatay degmada Wajaale aad baan uga mahad celinaynaa inta ka hadhay insha Allah biidillaahi baari iyadana waxaan jecelahay iyagana inaan si gaar ah ugu mahadnaqo dhalinyarada Taakulo